بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شركة شرائد وحان ماشان وقبني maanta inaan ka hadlo dhul aniga aan leeyahay oo ku yaala degmada Kismaayo khaasatan xaafadda Farjano qaybteeda Waamo oo la iga dhacay maamulka Jubbaland oo iga dhacay yaan rabaa inaan halkan kaga hadlo iyadoo ay u weheliyaan shirkan shiraaid khiyaartan Daahir Cali Dhuux iyo Maxamuud Sheekh Xasan iyagana waa uga mahad celinayaa siday iga soo qayb galeen shirkan shiraaid inta ka bacdi haddii aan dhex galo dhulka xaaladiisa iyo sidoo ahaa dhulka saan sheegay meeshaas wuxuu ku yaala xaafadaas Farjano qaybteeda Waamo waa dhul konton aniga nin aan walaalanahay oo la yiraahdo Xaashi Cabdi Shakuul baa iska leh muddo intii maamulkan Jubbaland meesha uu tagay ba ahayd waxaa dhulkaas nagu soo hagarjoomay oo damcay inuu xoog nooga qaato nin la yiraahdo Rashiid Maduulow oo Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland u qaabilsan dhulalka asagoo oo xitaa ninka walaalkay oo xagga joogo u sheegay dhulkan inuusan yeelan karin oo lahaan karin ugu hanjabay lacag haduu raba inay siinahayaan oo isaga taga meeshan asagoo xataa ugu hanjabay adigu muddo bay soo socotay hanjabaadaas iyo dhibaatadaas bishaan hadda aan ku jirno July 5teedii yaa meeshii dhulkii ani waxa iga dhisnaa derbi mitir ah iga dhisnaa igu wareegsanaa dhowr jeer baan damay inaan dhisto iga celiyeen bishaan 5teedii July 2018 yaa waxaa yimid Rashiid Maduulow iyo ninka gudoomiyaha degmada Kismaayo Timajira meeshii bayna dhagax dhigeen ayaga oo sheegay dhulka inuu maamulka Jubbaland la wareegay ka bacdi odayaashii ninkii walaalka meesha joogay odayaal nabadoonna iyo xildhibaano Jubbaland ka tirsan oo marka ayada arintayda ka socday baa arintii galay waxaa loo tagay maamulka qaybihiisa meesha joogay madaxdii ugu sareysay sida madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka labaad Luga Dheere Cabdiqaadir Luga Dheere iyo wasiirka arrimaha gudaha Darwiish waxaa loo sheegay xildhibaanadii iyo odayaashii nabadoonnada hay'adda isla socda dhamaanba meesha tagay oo u sharaxay dhibka jiro dhulkuna waa dhul sabar looga dhulalka oo basiibada ama ahan sabar loogadiisina waatan oo maaragtay qofka u baahan maaragtay cadeynteedii wata sabar loogadiisi waxaa la bixiyay 1989 waa dhulkaas cadeyntaas leh dhul maaragtay isha oo basiiba ama sida dhulka oo basiibada dadku isku qabsadaan nimanka odayaasha hay'adda madaxa ahaydo loo tagay waxay dalbeen in loo yeero labadii nin oo meesha dhagax dhigtay sida Rashiid Maduulow oo ninka dhulka dhiciisa soo abaabulay ah iyo Timajira oo arinta waday way imaadeen dhulkan joojiya la yiri xildhibaanada iyo nabadoonnada dhulka ka qaylinayaan oo sabar loogada ah waa sharci darro inaad dhistaan haddii wax aad ku dhisaysaan oo sharci ama dacwo aad haysaan imaada nimankaana ka garbaxa way diideen waxay yiraahdeen annaga Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland baan amray inaan dhulkaas dhisno oo aan maaragtay ka dhisno station police station baan ka dhisaynaa madaxweynahan amray bay dheen madaxdii kalena amarkii kulay ay markii dalbeen waa ma soconin oo meesha kama shaqaynin waxyaabo badan baan isku daynay wasiirro badan baan la hadalnay fartaag baan la hadalnay oo hadda barasa bahalkii ka ah meesha la yiraahdo Jubbaland senator ka ah waxaan la hadalnay ninka la yiraahdo Ciro Ibrahim oo xirsi baan la hadalnay oo asagana wasiir ah dad badan oo madaxan la hadalnay ilaa ay haddana wax noo dhiciyo ama arintii aan ka dacwoonay iyo dulankina lagu sameeyay iyo jurfalkii wax ka qabto oo arintaas soo galay ma jirto waxa marka fariinta toos hadda aan u aadinahayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waa qofka kaliya oo noo dhiman oo aysan gaarin dacwadda dhulkaas iyadoo horey ay u gaartay oo mar uu la kulmay ninka walaalkay ah Xaashi Cabdi Shakuul isagoo sabar loogadiisa wato ina Maduulowna uu ku yiri dhulka inuu sharci yahay in kala soo cadee Axmed Madoobe uu amray ina Maduulow warqadii markii la tusayna uu sheegay inuu sharci yahay dhulkan laakiinse ay kala qurxanaatay dhaca iyo boobka iyo bahalnimada uu ku hayo bulshada
asagoo sheegahay in Axmed wax walba sameynayaan usoo diray fariinta marka Axmed aan u dirayo waxay tahay waxaa la yidhi khiyaar waxaysan foofsan baa usoo hoydo haddii Maduulow waxa uu sameynayo dulanka iyo fidnada uu meesha ku hayo oo bulshada Jubbaland iyo dadka shacabka naf iyo maalba in la dhaco uu ka shaqeynayo haddii ay tahay wax Axmedow aad la og tahay madaxweynaha Jubbaland anagu reer Jubbaland baan nahay Jubbalandna dad khaas ah ma lahan dadkay ka dhaxaysaa ninkii ninba maalin buu joogaya maanta aad joogo waa tagaysaa barito nin kala imaanayo nin walba markuu joogana taariikhda wixii uu ka tago baa qorayo aakhire iyo xisaab iyo tii rabbina hadii nin walba wuxuu shaqaysto way hadii marka ina Maduulow inuu dadka dhaco oo hantideeda dhaco aad soo dirtay hadee anigu la ima dhici karo nin la dhacana ma ahi waxa weeye waxaan soo qaadanayaa gabay yar oo Faarax Xuseen Sharmaarke uu tiriyay hadda ka hor in kelimo ka soo qaadanaya oo ahaa ninkuma daa'imo libin rag waa isaga dambeeyaa marka haddaad maanta meesha joogtaan waan hubaysanahay waxaan doonaan sameynayaa wax soconaya ma ahan anigu dulan kuma soo korin dulanna ma rabo dhulkaas anaa iska leh ninkii maanta hadda yiraahdo xoog baan ku qaadanayaa oo haddii ama isu garaabi waayo ama qof walba wuxuu leeyahay loo tixgelin waayo ama Jubbaland dad gaar inay leeyihiin laga dhigana ma noqonayso Jubbaland dhulkaas meesha ku yaalo dhulka hadda la dhacayna ama kayga ha noqday ama ku kalo dad laga dhacay masaakiin ha noqday la fujin maayo meesha laga fujin maayo meesha ku yaalaya waxaan marka fariintan toos ugu dirayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam arrintaas inuu wax ka qabto haddii Jubbaland la wada leeyahay madaxweyne asaga ama Axmed ama Hasamaad xilligan asaga joog annaguna reer Jubbaland baan in marka arrintaas dhaca oo lagu sameeyo oo foolxumada ah oo wax ka qabto dhulkaas sabar loogada ah warqadiisina taas ay tahay oo konton lagu dhuftay oo ku yaala Farjano qaybteeda Waamo marka arrintaas yaan u gudbinayaa waxaa kaloon maaragtay meeshan ka sheegayaa waxaa weeye in Maduulow dulanka uu ku hayo bulshada haddii aadan la ogeyn sidaas uu sameeyaa dadku dhaca nabadoonnadii xataa hadda arrintan ku jiray oo dhulka arrintiisa ku jiray dhowr jeer buu xiray dhowr jeer buu u hanjabay oo siiri waa idin dilahayaa 2 jeerna xabsi buu geliyay haddee waxa meesha ka jira waa arrintaas weeye waxaa kaloon halkan digniin uga diraya qof walba oo Soomaaliya ama uu damac kaga jira inuu Kismaayo dhulka gato inaan lagu qaldin dhulkaas aan leeyahay oo ina Maduulow uu dhacay oo konton lagu dhuftay oo Farjano qaybteeda Waamo ku yaalo intaas weeye anigu waxaan soo jeedinayo waana ka baxaya waxaan uga baxayaa khiyaarta kale waxaan ku soo dhaweynayaa Daahir Cali Dhuux assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah waxaan runtii la yaab leh meesha la Jubbaland waxaa loo dhisay in dadka shacabka ah area degan ku noolaado oo ay dagaalkii qabaliga ahaa iyo isdilkii iyo isdhicii iyo isbarakicintii kaga reystaan baa loo dhisay oo rajadii loo dhisay saas bay ahayd haddana maalin walba haddaana arag wiigii 2-3 jeer baan arkaa dad dhawaaqaya oo la gurigeygii baa la dhacay magaalada la iga masaafuriyey waa la ii dhaartay marka meeshan sida had meesha muuqata dadka meesha degan ma guurayaan oo cilgama dhameyn karayo oo waxa hadda meesha ka muuqata sida taariikhda la socona ka socota ilaa iyo Axmed Madoobe uu yimid Kismaayo isbarakicin iyo cabasho iyo dhac xishood la'aan oo isu turud la'aan baa ka socotay waxa marka muuqata ninkii meesha yimaadaaba inuu guri ama qofad yeesho ama cilaha ahaade inuu guri helo marka dadku hadduu soo guurayo qofkii hadda meesha laga celiya geedaha hoostooda fariisanaya haddaan dhulkiina guuraynin dadkiina meesha ka tagaynin waxaan aaminsanahay inaan dadka la isku baabi'inin oo aan qofna qof xaqiisa in la siiyo aan looga raadinin karaamo iyo taageero uu ku taageero maamulka meesha ka jira marka waxaan ku talinayaa macna male ama Maduulow ama Gaduudow ama Galgalow ha sameeyo dambigii meesha ka dhaca adduunka waxa international oo heshiis lagu yahay baa jiro oo dambigii meel ka dhaca mas'uuliyadeeda waxa iska leh qofka meesha maamulkeeda madaxda ka ah baa iska leh Axmed Madoobe marka
nin islaama mar aayada noo akriyo oo mar hadal macaan oo mar oday aho intaasoo dhan saan ugu jiro maalin walba inaan wiil ama gabar ama oday ama hooyo ooyeysa aragno oo dhulkeedii la boobayo war dadka dhul haddaad u raadinayso iyow deji dhulalka banaano dhulka soomaaliya waa wada cidlo dhulkii qof miskiina booskiis qofna yaan ugu qancin oo la siinin ama reer loo siinin ama loo siinin inuu taageero yahay oo systemka iyo maamulka taageersan yahay waxaa ka fiican in dadkoo dhan xaq ay wada helaan qof waliba wixiisa loo daayo si sinaan iyo cadaalad iyo xataa xukunka iyo inuu dheeraado iyo in dab la isu doorto iyo in nabad meesha lagu joogo iyo waxaasoo dhan waxay ku fiican tahay in dadka meesha joogo dhan wanaagooda iyo cadligooda la simo intaa markii la helo waxaa imaanaysa qof walba oo meesha jooga inuu dad qofka madaxda ah uu xurmo siiyo codkiisana u ogolaado laakiin dhac iyo dil iyo kufsi iyo boob iyo eryid wax ku xumaado maahan wax ku samaan maayaan horey baa taa looga waayay qolyo horaa la isku soo bedelay oo qayb iyo xukuntan meesha ka jirta oo dadka hadda kismaayo ka socoto caanka ka noqotay ilaa iyo habeenkii nimankii yurubiyaanka ahaa 1884 ay afrika galeen baa qayb iyo xukuntaa lagu waday ilaa iyo hadda qayb iyo xukuntiina wax ku xumaada ma ahane wax ku samaada ma jiraan marka dadka miskiinka ah dhaca iyo dulka iyo kufsiga iyo dagaalka iyo eridda iyo isirsooca ha laga daayo oo axmed madowbow ka daa haddaad ka dayn weydana waxaasoo khaladaho aad miisayso iyo waxaasoo dhibaataahu aakharna aday kugu soo noqon doonaan adduunna rag baa kaala xisaabtami doono oo ninna been wixiisa laguma qaato nimaan dhiban xoolihiisa lama qaato marka ninka hadda 20 jirka ah meesha fadhiya dhulkiisa inta la qaato oo maduulow ama gaduudow qaato ama adig axmed uga qaadatid ma deganaan doontid marka si inaan adiga iyo midka asaga iyo midka aad siisay oo in adeerkiisa 20 sano jira oo aad dhulkiisa siinayso ha isku dilno berri ha isku dilno markaad meesha ka baxdo waa isku dilayaan ka daayo ha isku dilne kaana dhulka bannaan oo cidada hadda kana dhulkiisa u daa intaas aad ku soo bismillaah alxamdulillaah walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin waxaanu shirkan jaraa'id u qabanaynaa dhul laga qaatay ama laga dhacay walaalkay garabkayga midig fadhiyo maxamed cabdi cartan iyo ina adeerkay xaashi cabdi shakuul dhulka oo aan ahayn dhulalka loo yaqaano basiibada ee dhul sharci ah oo sabarloog haysto oo xilligii dowladdii kacaanka la bixiyey aanu hayno waraaqihii canshuuraha lagu bixin jiray intaasoo maamul ay meesha gacmahayda soo galeen kismaayo oo la isku bedelahayay dhulkaasi cid dulmisay iyo cid ku xadgudubtay ma jirin waxaa la yaab maanta oo taariikhdu ay tahay 2018 soddon sane ku dhawaad kadib markii dhulkaasi dhulkanaga noqday in haatan la dhacahayo oo lagu dhacahayo magac maamul ama magac dowladeed oo loo xoog sheeganahayo oo darbigii iyo booskii ku wareegsanaa cagaf la gelinahayo oo la leeyahay maamulkiibaa dhisanahayo in qof shaksi ah vs maamul dhan oo hubaysan oo dowlad ah waa arrin cajiibe ujeedkanagu wuxuu yahay waxaa la yidhi gobi waa ergotaa waa ergo in dhulkaa la yidhi waxaa dhisanahaya maamulka oo waxaa loo dhisahayaa xarab booliis baa laga dhisahayaa la yidhi siduu u faahfaahiyey walaalkay maxamed cabdi cartan oo ah ninka dhulka laga qaadahayo dhulkaasi waxaanu codsanaynaa oo ka codsanaynaa maamulka khaas ahaan cid kaloo noo hartoo badan ma jirto madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waxaanu ka codsanaynaa in la joojiyo dhismahaasi dhulkaa laga bilaabayo dhulkaa la sheegay warqaddaa ku qoran ninka la yidhaahdo xaashi cabdi shakuul iyo maxamed cabdi cartan
in la joojiyo dhismahaas iyo constructionka laga wada dhulka. xorriyatul qowlka iyo nabaddu waa waxa as-aasiga inuu qofka bini aadamka u badbaado hoygiisa. waayo haddii hoygaagii lagugu soo galayo gurigaadii, haddii waatuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam lahaa man qutila duuna ahlihi wa maalihi fa huwa shahiid. qofkii lagu dilo isaga oo difaacahayo maalkiisa iyo ehelkiisa, gurigiisii iyo xaaskiisi iyo carruurtiisi loogu yimid, markaa inuu qofkaasi dhinto oo shahiido buu gar u leeyahy. waa waxyaabaha keenahayo inay nabadgeliyo xumo ay dhacdo, in qabaa'ilku iska hor yimaado, in waxyaabihii daruuriga ahaa oo qofkii inuu boosaskiisii iyo guryihiisii u badbaadi waayo, waxaa keenahaya way fidnada. hadalkanagu waa koobanya. jaale madaxweyne, fariintaani si toos ah kuusoo gaarto. dhulkaasi uu ku qoran yahay ninka la yihahdo xaashi cabdi shakuul iyo maxamed cabdi cartan ee aanu halkan ka sheegnay, constructionka laga wado, maamul iyo shaksiyaad ma dagaalami karaan. waa wax waxaa weeye cusub wey, mana ahan dhulkan dhul iska boobocsan karo. waa dhul sharci ah oo dowladdii allah yarxama maxamed siyaad barre ay bixisay, oo sabarloog oo sharci ah wey. ha la joojiyo barakicinta iyo ethnic cleaninsiga ku saabsan dhulka oo laisku taarget garaynayo qabiil ahaanka, si qabiileed laisku taarget garaynayo. ha la joojiyo si aysan fidno u dhicin. dhulkaasna xaaladiisa shaksiyan madaxweyne adiga gal, adiga ayaanu fariinta kuu diraynaa, adiga ayaanu erga kuu nahay. wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.